taliska booliska iyo maamulka degmada burtinle ayaa si wajir maanta waxay si jiraa ugu qabtay gudaha degmada burtinle oo horeyntii waxa warbaahinta la hadlay taliyaha saldhiga booliska degmada burtinle gaashaanle sheegay cabdi kurtuun wuxuuna sheegay inuu ganaax ku dhici doono gaadiidlayda isticmaala wadada u dhexaysa degmada burtinle iyo degmada xarfo oo ka kala tirsan gobolka mudug iyo nugaal inuu ku dhacayo cinqaab aad u adag cinqaabta waxay isugu jirtaa labo mid waa dhaqaalo oo ganaax baa ku dhacaya mid labaad oo kalena wuxuu ku dhacayaa xabsi waxaan maanta shirka jiray dadka ugu yeeraynaa oo warbaahinta ugu sheegaynaa waan naqaanaa Soomaalida dhaqankeeda in adeer ugu oranaya xidid baan nahay buu dhahayaa qaraamaan nahay buu dhahayaa wasiirro iyo taliyaal ciidan buu soo kicin doona hadda waxaan ka hadlayaa hadda ka hor baan ugu dhacdo waa wax dhacda taan soo qabano kuwa dambeelayaala in meel walba ay nooga yimaadaan oo yiraahdaan ilma ilaalo sharciga u jabiya waa dhacaysa wax dhacaya waxaan rabaa inaan marka u sheego dadka uga digo saysan u imaan kulay waan hubaa inay kuwaas deynayeen oo ay ku dhacaysee kuwa kale oo kuwaas ehelka iyo qaraabada u noqon doonaan oo ama ha ahaadeen shacab ama ha ahaadeen dad dawladda ku jira ama ha ahaadeen wax garade waxaan leenahay kuwaasaan waxaan isaga dhigaynaa inay istaakal u noqoto arinta maanta aanu sheegayno aysan noogu imaan dhanka kale gudoomiyaha degmada burtinle maxamed axmed ayaa ka warbixiyay dhismaha wadada u dhexaysa burtinle iyo xarfo sidoo kalena baaq u diray shirkadaha ka howlgala degmada burtinle uguna baaqay inay laamiga ka fogeeyaan taageerada isagoona xusay in dhismaha laamiga gudaha degmada burtinle ee gobolka nugaal la bilaabi doono asbuuca soo socdo shirkan jiray u qabanay maanta ay taariikhdu tahay 2 bishii May 2018 sida ku warbaxshay taliyaha saldhiga laba qodob oo kala ah inaanu uga warbixino bulshada reer Puntland ama Soomaaliyeed in meel fiican oo gabagaba ay marayso wadadii isku xiraysay xarfo iyo jalam fayski koowaad hadda inuu gabagaba yahay oo ahaa xarfo iyo burtinle waxa hadda gacanta lagu wada dhameystirkii fayski koowaad wiigana waxa la saarayaa laamigi waxaana ku xigi doona wiiga labaad in magaalada gudaheeda wadadii dhex maraysay burtinle ka koona in la dhisi doono bulshooyinka reer burtinle waxaanu u sheegaynaa inay ka fogaadaan hadeer ka arursadaan wixii agab ah oo ka yaala wadada hareeraheeda waxaan u sheegaynaa kuwa shirkadaha korontada kuwa teleefanada inay ka fogeeyaan baalayaasha u dhow laamiga si hadhow aysan wax dhibaato uga soo gaarin digniintaas waxaan u direynaa ganacsatada isgaarsiinta ama korontada waxaan kaloo digniin u direynaa gaadiidlayda isaga gooshta gaalkacyo garoowe haddaba tallaabada inooga habboon maxay tahay inaynu la dirirno haddaynu nahay maamul iyo shacab intaba sida taliyuhu sheegay wuxuu mutaysanayaa xarig iyo ciqaab lacageed oo ganaaxa ugu dambeyntii mid ka mid ah gaadiidlayda isticmaala wadada u dhexaysa garoowe iyo gaalkacyo ayaa soo dhaweeyay amarada ka soo baxay maamulka degmada iyo taliska booliska degmada burtinle ee gobolka nugaal waxaan kaloo ku qanacsanahay ciddii sharciga ku tumata oo wadada waxyeello u geysanaysa cinqaabta ugu adag in la mariyo maxamed kooshin warbaahinta SBC degmada burtinle.